taag gacanta fiiriya cunugan waxaan u garaaci doonaa si naxariis darro ah waxaan ku garaaci doonaa jirkiisa oo dhan taag gacanta abti maxaa ii tumaysaa mar kale kuma garaacayo miyaanan kaa weynaan aniga waxaan kuu sharaxayaa sababta aan kuu garaacayo keen taag gacanta dadka ma garaacaan carruurta meesha ma waxay u eg tahay Ameerika keen u taag gacanta si dhaqso leh adiga kula hadlaya taag gacanta keen Adoo fiiri qoraalkan qaad qoraalkan tag meesha internetka una sheeg inay soo saxaan dhammaan qoraalkan hoos ku xariiqan kadibna soo koobi ma ifahantay qaad hoy soo dhaqso fiiri dadkan anigayna sugayaan waxaan rabaa inaan toogto aana ka tago halkan hadda orod bax qaab ma leh haddaad waqtiga iga lumiso mar labaad ayaan ku garaacayaa carruurta maalmaha waxay ka xanaajiyaan dadka waaweyn aaway qoraalka maag agaasima waxaan u dhiibay Imanela si uu ugu soo saxo meesha internetka haye aaway Imanela ha ka baqin si dhaqso leh ayuu ku imaanaysaa way imaanaysaa asxaabay waa ikan agaasima kani waa qaybtaada hadalka hagaag buki abti maya kaas adiga ma lihid isku mid ma ahoon miya hagaag waqtiga ayaan iska luminaynaa kaalaya aanu bilownay hawsha agaasime arrinkan si run ah miyaan u samaynaynaa waa run run ma waxaad rabtaan inaan samayno jilliin qaldan hagaag fiiri Kaybaron waxaan kaa rabaa qoraalada inaad u kala saarto eray hagaag mudane maag adiga horaad buu u taqaanay qaybtaada buki isku diyaari duwista haye mudane hagaag diyaar ma tihiin kow labo ficil waxaan ku leeyahay saaxiib maxaad u dharbaaxday qoraalkayga ayaa ah inaan dharbaaxo waa qoraalkayga maxaa ka wadaa qoraalkan dharbaaxsho kuma jirtee agaasima fiiri saddex dharbaaxsho ayaa ku jirtee yaa ku daray dharbaaxshada qoraalkan adeer Kaybaron dhamaystir dharbaaxshada hal xaba ayaa ku dhimane